السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو أدون كجوجتان لما وحق سلامتين صلاة إسلامك. السلام عليكم وحيدير يا بش برواقو يسوق العافية طب لما أنت ميل كستو أدون كجوجتان وحن الله هي عيد مبارك وحن دنيا إلى إذن لو ذاقو وربحنتي قدام بيسي إلا سعارات سيدا أوكلا وحن أيضا كورين دونا معجزة كدعادة وطن كإسويدن من كتاب كقرآن كأه hilib doofaar dhex dhigay kaas oo baraha bulshada aad iyo aad saacadii la soo dhaafay iyo minidadii la soo dhaafay u haystay kaas ayaynan ku horeyn doonaa hadaba arinka la saacad waxaan wax badan ka fahansiin doonaa codad badan oo been oo baraha bulshada la soo geliyay iyo soo kale muuqaal real ah oo maalintii la duubay waayahay soo dhawow waxaan ka codsanayaa mar labaad ku xusuusinaya muuqaalka la igare share gare comment-gana wixii reegaa ku insha Allah isku day inaad muuqaalka share gareyso waa saaxiibada si gaarsiiso waayahay aynu u guda galno barnaamijkeena waxaan ku horeyn doonaa wararka caalamka iyo Sweden waxa jira nin xildhibaan ah oo ka soo jeeda wadanka Ciraaq ka soo jeeda in uu isku dayay amaba uu sameeyay sidaan halka idin soo dhigi doono ninkaas mikrofoonka haysta maalintii Eidul Adha kowdii maalintii Eidul Adha maalintii koobaad in uu sameeyay in uu soo qaaday kitaab Qur'aan ah meel maxshar la yimi ودadka isugu yeeray oo hilib doofaarna dhaxgaliyay hadaba meesha waxa ka gubatay waxa ka dhacday caro aad u weyn waxaana wadanka Sweden galay khalkhal meel kasta dhan kasta haday noqoto waxa way xiriiradii caalamka islaamka iyo hadii ay noqoto islaamkii ku dhaqnaaba arinkaasi waxa uu sababay in calankii Sweden gudaha Sweden lagu gubo laguna istaago maadaama uu isagu sameeyay in uu kitaab Qur'aan hilib doofaar dhigo hadaba wadankan Sweden ayaa waxa uu berihii u dambeeyay waxa weeye magan gelinayay islaam nacaybka kaas oo sameeyay hore inuu kitaab Qur'aan masaajidadii ka ururiyay oo meel cid la ku gubay waayo ninkan ayaa sababta ugu weyn maaragtay keentay in uu kitaabka Qur'aanka meel maxshar hilib doofaar dhigo sheegaya in ay tahay cadaadin ay maaragtay ururo arrimo gooniyo wata ay maaragtay dabada ka riixayaan maadaama uu yahay nin islaam ku aftirsada oo wadanka Ciraaq ka soo jeeda oo Carab ah waayahay arrimahaas oo ku badan inta badan Yurubta inta badan qof ama xildhibaan ha ahaado ama shacab ha ahaado inta badan hadad wadan kala joogto waxa weeye awood buuxda kuma haysatid waayahay wadanka Sweden intaasaan ka imanaa iyo caradii islaamka ee ninkaas maaragtay ay ku daldhaceen iyo guud daradii haddii aad faahfaahin badan oo sii baahataana baraha bulshada haddii aad gashaan meel kasta waa idin kaga hor imanaya waayahay aynu u tagno gudaha iyo arinka la sacaanood dagaalo waaweyn baa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada soo galay been abuur aad iyo aad u tiro badan sida in la dilay nin dollar la yiraahdo oo dabcan ciidanka Soomaaliland ku ugu sareeya sibahan militariga kamid ah ninkaas oo aan xaqiijinay in uu nool yahay waayahay dhanka kale codadkan ayaa iyaguna baraha bulshada soo galay ka manaafiicda sidee ciidanka qaranka loogu garaaca ilaa imika aan u jawaabin musuq ilaa imika sidee baan u jawaabin 24 saacadood baan ku qabanayna hadaan u saaqnaynayo taan reer Soomaaliland 24 saacadood baan ku qabanayna 24 saacadood hadaad kaga jawaabi weydo oo ay laascaanood ololi weydo oo ay duniduba qiiq weydo kabeesha nooga soo qaad barquleel sidee baan la saarad sida aad arki kartaan codadkaas baraha bulshada soo galay kuwa soo been abuur ah laguna khalkhal gelinayo maaragtay dadka aan dagaalkaas u dhaweyn ama dadka inta badan dadkooda ciidamada ku dhex jiro ujeedadu ay tahay in lagu khalkhal geliyo dhankasto ay tahay waayahay muuqaaladaas wax ka jira iyo codadka ma jiraan sida oo kale asna waxa soo galay codkan oo kale ayaa soo galay bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim السلام يا أمة الصوماليين مركز تيجوكتان السلام سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد وحن سلام يا كور الوقوي مركز تيجوكتان أنكم سلام سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waayahay isaguna codkaas cod been abuur ah lana dhaxsameeyay dadka propagandada iyo dagaalka ka dhaxwada magaalada Laascaanood codad ay sameeyeen ah ujeedada codadka ay sameeyeen ayaa inay ku khalkhal geliyaan waxa weeye dadka inta badan reer Geesa reer Burco reer Boorama iyo reer Laascaanood isoo kale reer Ceergaabo umada maartay reer Soomaaliland codadka wax ka jira iyo muuqaalada la duubayo dabcan muuqaal gaarigu waa gaari dabcan saaxibta lagu sheegay marka hore xagga go'aaduu si socday oo dhankan loo rogay
marka arrimahaas wax ka jira ma jiraan dabcan waa hadallo laga soo shaqeeyey sida hadallada odhanayo oo kale midka dhaafinna meesha caynabo oo kale iyo oo dabcan dadku ha shakiyaan qof kasta oo qof ciidani ka joogay maaragtay ciidanka Soomaaliland kamid ahaa dadku ha shakiyaan laakiin arrinka annaga u joogna waxba waxaas kama jiraan waayahay haddii aan dagaalkii u dambeeyay ay wax idinka taataabto asaga waxa jira dhimasho fara badan horta dhimasho fara badan ayuu sababay dabcan aniga oo muuqaalka soo geliyay oo dabcan dadka dagaalku socday haddii aad muuqaalkii daawanayseen dad badan baa daawaday waxaan 60 70 ilaa 50 waxaa la soo sheegayaa in dhanka garaadada qaar oo kaliya in ay dhowriyo 60 qof dhimashadu marayso dhimashada faraha badan waxay keentay kala biiqitaan dhanka maarti garaadada qaar ah oo dad badan oo reermi ah oo la soo ururiyay shanta fagax yiraahdaan meesha uu kala wadanayo hal maalin hadii koob iyo 60 dhowr iyo 60 dhintaan maalin labaadna dhowr iyo 60 dhintaan 130 qof dhintaan anuu ka bixi mayne loo kala wado meesha niyo dagaalkii horta halkaas ayuu marayaa sansaantiisa waayahay dagaalkii maanta u dambeeyay la galay ma jirto meel ciidanka Soomaaliland laga qabsaday meel ay ayagu ku turkeen mooyaane hal meel oo ciidanka Soomaaliland xataa ka yara turkeen ma jirto sida oo kale ciidanka garaadadu qaar ayaguna sidoodii ay meelahoodii u joogan dagaalkoasi horta dagaal hadii aad aragtaan dad soo qaaday oo haddana mar labaad soo qaad way dabcan waa jabniino dagaalka wax soo qaaday dhinaca garaadada qaar dabcan dagaal 4 cisho loo nasto haddana la galo haddana la galo mayna arag dabcan mar kasta waxa imanaysa qorshe waxa imanaysa dhimasho aan qorshe loo hayn ba imanaysa oo aasitaankeedu ka timaalmo qaadanayo marka dagaalku saas u socdaa hadii ay awood lahaayeen dabcan dhinaca garaadada qaar dagaalka way joogtiin lahaayeen laakiin awoodda diiday joogtiinta soo kale ciidanka Soomaaliland ayaa wali goobahoodii ku kala sugan dabcan way adag tahay in maaragtay laga helo tirada saxda ah ee dhimashada markay noqoto dhanka Soomaaliland waayo waa dawlad markaas dhanka kale ayuun baa la ogaan karaa runta marka la sheego laakiin dabcan dhimasho kulli labada dhanba waa jirtaa laakiin anagu dhankaas ayuun baan maaragtay dhimashada xaqiijin karnaa inay muddo adiga dad sida ay wali xogu sheegay ma xaqiijin karno si ay xogu sheegayaan inay gaareen dad konton qof sare u dhaafay ay ahaayeen waayahay insha Allah maanta muuqaalkeena intaas ku soo qaadan doonaa waxaan ka codsan doonaa inaad ilaa garayso ii share garayso commentigana insha Allah wixii reegaaga ah aad igula wadaagto